مسؤولين ماسك صار ما حاول دعوة مسؤولين ماسك صارتان استعلانا دقيقة اللي جت شوتشيو حبض نمك ماشي كتيران كليا لجوء كيو sidoo kale waxaan ku diinayaa dhaawaca istaalka gaalka ee laga soo baxay oo loo soo maaragtay ragii dhinaca wadaadada ku dhaawacmay maxaa ka ogtahay arrintaas ma arrin sax ah ama waa arrin iska propaganda waa mahadsantahay horta dee sideedaba dagaal hadduu dhacayo dagaal waaba dhacay waa saa sheegaysid dadkii waa dhibanayaan marka isbitaalada maxaa loo waxyeeleynayaa waxa weeyaan waagii duqeynta Baghdad gantaalaha xoog gala lagu garaacay Mareykanka ku garaacay ayaa waxay dacayada ugu badan Israa'iil keenay waxay ahayd wariye soo gudbin lahaa arrimaha halkaas ka dhacaya Saddam lagala horjeedo iyadoo magaalada la burburinayo ayaa la xiray marka beesha caalamka iyo adduunyada xuquuqul aadanuhu aaday wax uga doodaan wariyaa la xiray magaalada wada gantaala marka haatan anu isbitaalada la duqeeyay ba ogi laakiin xanuunka dadka ka xanuun badan markaan dad Soomaaliyeed nahay ama Islaam nahay iyadoo dad dhibanayo meed jiro bildina haddii wax gaaraan macnaheedu maahan in balaaya dhacday laakiin haatan anu isbitaalada waaweyn magaalada ku yaala isbitaalada ku yaala asagana nimanka odayaasha ayaa haddii la ku hubay nagu soo tuurayeen meel uga dhacay waxa weeyaan ataadiye kale iska jiray waxa soo hartay midatan saraakiishan meesha dhaawac u tagay sida waxay ahaayeen nimanka kanu saraakiishii qaybta 12aad galmudug joogta gaashaalayaal saraakiil sare ahaayeen markii dagaalku bilbilaabanayay ay dhinaca kale ka soo jeesteen oo ayagoo dharkii qaranka wata oo dowladda wata ma ahayn niman ama culummo ama hab kale ku yimid markay sidaas tahayna halkaas inay tageen ayay dowladda ogtahay dowladda xil baa ka saaran in saraakiishaasi abadan biha kalaamiyaysa gelida dhaawaca inaysan baylaha noqon oo cilo ku dhicin inta isbitaalka laga soo bixiyey la soo watay anugu afkaaga igu horeysa ma maqal laakiin la daaweynayaan ogahay haddii la daaweynayana un markii daawadoodu ay israacdo hadda waa ciidan qaran oo lambarkii lahoo haddii ay ku dowladda u diiwaan gashan nidaamka iyo habka ciidamada iyo qaranka ay ka tirsan yihiin uu qabo unbay kolley raacayaan inta koreysan xil baa ka saaran saraakiisha halkaas ku dhaawacan in mas-uuliyaddeeda dowladdu ay hayso oo ka warqabto oo ogaato meesha ku dambeeyaan midana in la soo isbitaal lagala soo baxana anuu taamahayo adiga unba kaa maqlay hadday jirtana waxa weeyaan un xanaanayn kale oo loola sii dhowaanayay haatan ma gaarsiisna in unta isbitaal lagala baxo wax loo geysto سعد وزير أدنى ما سنتهي تطبعاً بفرت وتاجنتهي فود وهذا ولا لها شعيب محمد خدك يقدر جراد يا مها يا عمر ونوي من دون عيسى سؤال برا دقيستاس وكوي دي أدنى أتكجوابتي إن أتفاهم كلا نقصيسو سراكيشن راوعة الله هاي أهل السنة لقى قبتي حقيقة يوجن مركبين كجعنتينا يسوق لين قلمي قداتين iyaga saraakiisha waa saraakiishii dagaalka hogaaminaysay oo dhaawac ku gaaray laakiin si dhowaalaysiyaha loogala tahriibay dhinaca gurceel ciidamada amniga oo jooga haddii la ku idmaayo kontaroolada galmudug ee gobolka mudug ee magaalada galkaayo ayaana gacanta ku dhigay ka bacdina ciidamadu waxay u galbiyeen oo geeyeen isbitaalka weyn ayagaana markaa riboortka soo gudbiyey isbitaalkana ayagaa dhigay qaabkii meesha ku mareena wuxuu ahaa qaab dhuumaalaysiya lagu marsiiyey oo maaragtay meelo kale loo waday sidaasaa wax u dhacay marka hadda isbitaalka gaalkacyo jooga maamulka galmudugana gacanta ku haya saraakiishaas saas wey in aysan dhib soo gaaraynin maadaama maxaabiis dagaal ay yihiin ma ballan qaadaysaa dhib soo gaari maayo waa dad ehela oo deegaanka u dhashay qalad kasta oo jira iyo wax kastoo haatan la kala sameeyana marna qof aan nolol ah xaggayga ku yimid in la xanaaneeyo mooye in la dandareeyo qorshaha kuma jirto waa daaweynayna ayagu marka saan hore u sheegay
dadka caadiga ah oo dhalinyarada ah oo iska maaragtay baawudada ah oo ama arrimo diineedka ku salaysanoo iska horta maahan waa saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliyeed saraakiisha marka sidaasa ciidanka qaranka Soomaaliyeed shuruuc uu leeyahay waana joogaan marka shuruucdaas ciidan kulli waxay ka mutaan ayay unbay ku leeyihiin aan ula sinanahay shuruucda qaranka laakiin galmudug xanaano ka saa'ida midka ay si bareefad u helayeen inaan siina mooye wax kala nalka filma سعادة وزير خدك كجر دقيقتياش هذا كوسو بيري بوغان وحن حسوسنا يا عاوة موضوع كدو دينا وحالة قرعيل يورك ودنبيي طبعا واحيل الدنبي أصل كذا بريدتك تشوغا هذانا ما دام الدقال لما معلومات كسر لمجال قرعيل يا وحان جعلي سنة إن ضد بدن أو واحد بدن إن يسمى كأوجين لغاية بوحي شلي يمان تدعي إن حق الدولة ورا رسمي أكهلنا إن وزير فلق لا خدك كجرا ووزير كورفافين تنقل كي يدلحيس كي يدور الجبلات كجلمدك وصل مرة بوشوغا إن أنا ضد بناك صوصاريا إن طرق هذا خدك كجرا إن وزير نودر قاضي وحلقة بوقتي أن قلت نقلنا إن ضدن مرتين وقعت إن كير الدكتور ما دام ضدك سؤال بدن أي قبان إن كن قف ضدك بدن بهذا قدك توس كجرا إن وحنجعلها إن سود ويو عمر محي الدين oo hadda codsaday inuu su'aal ku weydiiyo Umar Muhiidiin Umar ku soo dhawaa madashan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaamantiin maantiin wasiirkana waan salaamayaa si gaar ah u salaamayaa dadka Soomaaliyeedna inuu maartay jaaniskaasi waan uga mahadcelinaa wasiirka laba su'aalood ayaan rabaa inaan weydiiyo kuwaas oo kala ah maartay ahlu sunna waa la yaqaanaa waa dad deegaanka joogi jiray dadka dagaalamay hayaan waxay u badan yihiin maaragtay hadda dadkii deegaankii u badan yihiin oo maahan hadda cadow soo duulay marka wasiir ma isku daydaan intaan dagaalka la qaadin in aad wada hadal la furtaan oo aad wada dagaal hayn aad maaragtay wax ku xalisaan su'aasha labaadna waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama dagaalku laba maalmood uu socday dhinacii dowladda dad qaaliga maaragtay ku baxeen dhinacii maaragtay ahlu sunnana sidoo kale dad deegaanku ay ku baxeen oo xitaa dhinaca maaragtay dowladda ka mid oo ay ku jiraan waxay idin qorshaysan in dagaalku uu sii socdo oo maaragtay laba maalin maadaama uu socdo inuu sii socdo ma idin qorshaysan oo sidan la isugu basbeelo mase waddo kale ayaad qaadaysaan haddii uu dagaalku sidan kusii socdo mahadsantahay wasiir سعادة وزير من مغشى ولا مغشى سيف على القوم على كسوع وحن ودك الدجان كوي وهويان ودك الدجان كل شيء سواء كان إن مالت وحكي تبعنا ودك الاحتلال الله اللي أوجه وحيين نصيب درو وهويان دولتي in galmudug dawladda iska dayso oo dawladdii la waxyeeleeyo oo deegaan nabdoon oo waxbarashadii iyo ganacsigii iyo nabadii ay u dareereen oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee galmudug ay inta soo weeraraan qabsadaan oo dadku qaxo oo sharci u xirmo oo si walba u xirmo nasiib darro ayay ahayd aan laga filaynin lagana sugaynin weliba magacay ugu yihiin iyadoo markay sidaas dhacdana laguma degdegin oo bil ayaa waxaa loo arkayay in maarta arrintaas la farsameeyo oo aan qalad lagu sixin wayna ka suurtageli weyday marka waxa weeyaan waxaa noo raacday shalana waana soo anagii waana soo weerareen xalka ka raadinaynay sida wax ku qarxeen baa sidaasa sida aan nabadda u raadinana waa sida in dadkii oo bannaanka jooga aan gacan qaadi weyno waxay salo ahayd inaan marka hore nabadda ku eegno haddii ilaahay ku yidhi haatan la joogana nabadda mar walba waa naga go'anta waa u marhaadinaynaa haddii ilaahay ku leeyahay in dhulka xoog la suwaasho dowladda la inkarana hadda sharciguba dhigi maayo oo waa uga digaynaa taasu marka waa sidaas oo muddo bil iyo ka badanaan arrintaas ku baaqaynay haatanna waa ku baaqaynaa ilaa inta noo dhiman aan waxbana kala gaarin aan kala badbaadno midda kale su-aashan kale ee aad weydiisay waxay ahayd sorry su-aashaas kale waa
عمر كجرا عمر حتى سؤال شلون على حسوس وزير wasiir waa ku maqlaa waa mahadsantahay dagaalku laba maalin oo socdaa dad badan ku dhintay ma waxa ay idin qorshaysan inuu sidan ku sii socdo maantahay askar qaali ay ku baxaan mase waxa ay idin qorshaysan inaad u kala qaadaan horta dee waan ala qasbayaa anagoo ka murugaysan oo ka xun oo ka ku taalaynayna ayaan faraha naloo geliyey si walba oo lagu badbaadin karo aan wax daba u dhicinna gogol yar iyo gogol sare inta oo fadhiisanayna cod dheer iyo cod gaabanna waanu ku niri waanu ku odhanaynaa haddii ilaahay ku idmaayo hadda asxaabta naga soo horjeeda marka horena deegaankooda inay dabgeliyaan go'aansaday haatan is adkeynaya ayaa hadda ilaahay wax noogu daray haddaan ayaga xaggooda ilaahay uu ka soo sahlo annaga waxaa sharaf inoogu jirtaa oo aanu sharaf u aragnaa dagaalkooda sharaf u aragno inaan isdilana waxaan sharaf u aragnaa inaanu deegaanka ku walaalowno oo waaba nahay ayaguna ay xurmeeyaan sharciga iyo kala dambeynta in meesha dawladda ka jirtana ay qiraan wixii kale oo haddii ilaahay ku leeyahay dalkii deegaanka wax ku leeyahay ay sheegaanna lana dhegaysto waxay xaq u leeyihiin la mariyo oo wax naga diyaara oo noo diyaara nasiib darradu laakiin waxa weeyaan xagga kale nooga suurtageli weyday waase leeyahay ilaahay rajadiisa wixii dhicina waaba dhiceena haatan aan idinla hadlayo anoo ka faa'iidaysanaya codka baahaya diyaar barannahay mar walbana annaga in qof dhinto ama xabadi ay meel ku dhacdo waxay noo tahay waxaan noo fiicnayn mana aha waxaa sii wadayno haddaan arkuwas aad baad u mahadsantahay wasiir shire waxaan jeclahay shukri oo mudana sugaysa shukri walaal naga raalli ahaw shukri salaad soo dhawaaw ودوعك وعطش وين وذا السلامي ساعات وزيرادين وابو السلامي دمانتين وذا السلامي دتك ودي انتي وماشا نافدية سؤالا ودي لها ساعات وزير أحمد فلقلي هذا أغنى ماشي دقالة كسعودة ولي ماشي وحالي هاي علماء iyo xirtii iyo sheeqay wuxuu wata gees loo riixay marka hadii dagaalkan uu sii socdo wad meesha aad xoog ku muqoonisiin iyo hadii uu iska baxo sheeqay iyo xirtiisa ay banaanka aadaan maxaa in kaga qorshaysan galmudug ahaan adinka maxaa in kaga qorshaysan see ka yeeli doonteen haduu isu soo dhiibo iyo hadii uu inka tagay labadaba maxaa in kaga qorshaysan u diyaariseen su'aashaasaan weydiin lahaa saacad wasiir horta waxa soo socdo haddii talada anigu maliyo madaxweynihii waddanka maahi maxkamadihiina maahi wasiirka warfaafintanahay haddii ayse soo dhiibaan ama la qabto waxa laga yeelayo waa lagaga sarreeyaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego dagaal hadda ka hor nagu dhex maray dhuusamareeb sheikha iyo shaakir iyo sheekh maxamuudba waa la qabtay ciidan badanna waa la qabtay in wax la yeelo iska daaye waa la dhegaystay wixii iyagu ay codsadeen ayaana loo fuliyey labada sheekh waxay codsadeen inay dalka ka baxaan waa la jecsamay jeebkooda may ahayn ciidamadii la socday oo xabadda ayagoo dadka la dhacay aan qabanana dowladda federaalka ayaa loo weydiiyey dallacsiimo iyo inay madax noqdaan saraakiisha qaranka ku wada biireen qaarkoodna ilaa hadda ka tirsay qaarna dib ayagoo wada korneyla ayagoo ahay hadda caawa iyagoo dhaawaca ay meel walba daasi yihiin oo nasiib darro ay haddana dib ugu laabteen arrintii iyo fidqalaladii waxaasoo dhani marka waxay wax hore noo soo maray naxariisteedana aanu samaynay sidii dowladduna waa dowladdii dadkuna waa dadkii laakiin haatan un haddii waxaasaan samaynayna haatan hadda ma oran karo taladaas ninka goyn kara anumay laakiin waxaan ogahay inaanan annagu cadaawad u hayn dadan cadaawinana aysahayn laakiin qaladka ah sharciga tunka lagu sito ee la rabo inaanan dowlad noqon inaanan ficlan la socon in horumarkeenu dib u dhaco koboc dhaqaale ay jira waxa weeya deegaanadani mar walba waan uga mahad celinaynaa deegaanada tan dowladda haatan joogto khaasatan gurceel iyo dhuusamareeb iyo wixii la halmaala
dhiig badan bay geliyeen shabaab bay ka difaaceen dowladnimadu inay dhuusamareeb timaado oo ilaa gaalkacay laga soo sarfiyo guulahaas qayb bay ahayd marka waxaasoo dhani waa watixgelinaa laakiin waxa weeyaan marna ogolaan mayno in inta dowladda layska daayo haddii ilaahay ku rooyahay ama shaati diimeed layska daba joogo ama mid beeleed layska daba joogo wax fiicnanaysaa waa ogtiin marka waxaa nooga qorshaysan waxa weeye mar walba dhinaca wanaaggeenu raacinaa diyaarna u nahay mar walbana waxaan u aragnaa difaaca galmudug anagu mar walba maaragtay diyaar baan nahay oo deegaankaanu ka naxayna iyo dadkiisa waad mahadsan tahay waxaan jeclahay Shucayb Maxamed waa wariye wax badanna ka og galmudug guud ahaan gaar ahaan Gurceel oo hadda muddoba dhiladu ay taagneed 2 berina ay hadda xabadda dhacaysay Shucayb Maxamed Cali haye عطوش هذه ما سنتها مركلة وكلام هذا علنا ملاشان قيمة على sidoo kale wasiirka markale waa salaama asna uga mahad celinaa waqtigiisa saaxiibada kalena waa salaamiyihiin Catoosho waa sida ka dhawaajisay Gurceel xaalad adaga runtii ka taagan oo dad ku ay wada og yihiin xogogaalna loo wada yahay waxaan rabay wasiirka inaan weydiiyo su'aalo kale wasiirku waxa meesha ka jiro umadu waa ogtahay waxaan jeclaan lahaa inuu su'aalaha uu abbaaro sida dadku ay u weydiinayaan wasiir waxaan ku weydiinayaa waxaa jirta warar soo baxayay oo sheegaya in waan ay bilaaween habeenkii xalay ahaa senataro baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo galmudug ka soo jeeda oo mar ku dhawaaday in xal la gaaro sidaan xogo ku hayno bal noo faahfaahi wada hadaladaas maxaa ka jira haday bilowdeen maxaa hakiyay senatarada la sheegay waxaa kamid ah senatar Cabdi Qaybdiid marka arintaas xaqiiqadeeda wasiir maxaa ka ognahay sidoo kale ahlu sunna warar badan ka soo baxaya hadafka dagaalkooda waxaa kamid ah inay mansab siyaasadeed rabaan oo ay xildhibaano rabaan tusaalahan galmudug inay mansab siyaasadeed ahlu sunna siido waxay ka door biday in dagaalka inta la eego qasaraha inta la eeg ka dhashay oo dhaco maxaa loo waayay hadii aragtidaas bay qabaan in halkaas lagu xalliyo sidoo kale waxaan rabay inaan ku raaciyo wasiirado aad u mahadsan 2021 la joogaa oo dhamaad ah bishii 10aad la maraa dunidu isbedel weyn ka jira dalka isbedel ka jira dowlad goboleedka idin dhow Puntland waa ogtahay waxa ka socda heer madaxdii ugu sareysay ay xaafadaha u tagaan dadkii shacabka ayagoo cod weydiisanaya ma cuntantaa galmudug in 2021 marxaladaas uu dalku ku sugan yahay in dagaal inta qasaare la eegeysta oo ka dhaco magaaladii ganacsiga badan lahayd Gurceel oo dhaqaalaha maamulka uu ku tiirsanaa in muddo inta la eeg lagu dagaalamo ma u cuntantaa galmudug su'aalahaas rabina weydiiyo wasiirka aad u maasiyay mar kale midaan ah hadalada loo xilsaaray iyo xag salaam istaagay iyo waad mar hore idiin sheegayo albaabka wada hadalka iyagu waa furan yahay marka albaab xiraayo qolo ay xala soo gargaraacday hadduu ahaan lahaa waxa hore lahaa hebel iyo hebel waa runta laakiin albaab saacadaas kula hadlayana furan haddii ilaahay ku ruuyo awal hore u furaa madaxtooyaduna aan laga seexan ama madax sare ha noqdaan ama kuwa dhexe ha noqdaan ama dad shacab ha noqdaan ama culimadiin ha noqdaan ama haween ha noqdaan cid walba oo tiraahda nabad baan raadinaya albaabka madaxtooyadu waa furan yahay iyo dowladdu marka kuwaas furan maadaama ay saas u furan tahay wax gooniya oo xalay iyo maanta ya ah maadaama aan waxba mila dhalin saan u tilmaama maaqaan sababta weeye in dad qaar laga tahay qaar la sameeyo muhiimaddu way dhici kartaa dadkaasi madaxda ah sheegtay waana dad laga filan karo inay arrintaas u istaageen laakiin mar haddaan wixii mila dhalin qayladhaanta aan mar walba ku jirro ayay qayb ka tahay mana wax mila dhalayna ma jiraan haddaan wuxuu mila dhalin hadde in laga wahday inaan laga wahday midna macno samayn mayso taas haddaan sidaas idhaahdo midatan ma waxay rabaan kuraas hadday noo sheegi lahayn waxa ay rabaan waxbaanu kala hadli lahayn idaacadda waxay ka sheegeen shabaab dadday shabaab aadayaan waa u baahana cid shabaab inta aada annagaaba raaci lahayno inay aad uga adag yihiinna waa ognahay dhul badanna waa naga maqan yahay
ولو قرب سيلها لكن يقول عيل الشباب الجوجي dadkii laga xoreeyay joogay dawladii baa joogtay waa soo dhex fadhiisteen waray yiraahdeen waxa sanadkiisa ma jirto magacaasi markii hore oo dawladda haatan anigu wasiirka ka ahay xaaf baa ka horeeyay hadii ilaahay ku ilmaayo iyo dawladdan u dhaxaysay waxba laga siiyay baarlamaanku wuxuu ahaa kala barbo ahaa wasiiradu kala barbay ahaayeen haddana wixii ka hor yimid oo arrinkaas xaaf ka cayriyay dhuusamareeb ayay ahaayeen xaafna wuxuu ka doorbiday intuu la diriri lahaa inuu iskaga tago gaab baa yimid dib baan u dhacnay madaxweyne axmed cabdikaariya yimid haddii ilaahay ku waa la wada hadlay baarlamaankan hadda sharciga ee aan difaacayo 20 xubnood bay ku leeyihiin haddii ilaahay ku markii arrintaas doorasho dhacdana haddana magaalada dhuusamareeb dhexdeeda xabada ka bilaabeen arrinkaas waa laga heshiiyey waa aniga idin taabto idin waa la jecsimay ayaguna way maqnaayeen haatan markay yimaadeen si sharaf leh loo soo dhaweeyey oo ay siyaarad u yimaadeen labada sheekh dad la socday oo kalena ma aan arag dad la joogana ma aan arag haddii ilaahay ku leeyahay attention ama aragti dheer oo aan xumaan oo aan u qabnana ma aanay jirin rag heshiiyaan oo ahayn sidaas la ajligeed ayay si hoos dusida aan u aragnay ayagoo sheegaya inay magaalada ay wala wareegaan xagga saas yahay marka arrimahaas oo dhan waxay ka soo xagal daacinayaan waa arrinta waa dhinacaas weeyaan sida aad tiri haddii ilaahay ku leeyahay su-aasha abaarna haddee su-aashu siday taa loo abaarayaa sida maaragtay si raba la iskagaba dhigo halkaasay arrintaasu tahay wax hadda nala weydiiyo aan diidnana ma jirto taas haddaan sidaas yidhaahdo waxaa soo hartay maamulka dariskeena horumarka uu gaaray allah u saa'iidiyaan leenahay waa walaalahayo wadaadada dadka siyaasiyiinta oo magaca wadaadada wata ayaga bilowgii ayuu soo saameeyey laakiin dadkooda waxgalka ah oo ama ciidan ah ama odayaal ah ama nabadoonna ah ama haddii ilaahay ku rooyahay ururada bulshada ah ayaa ka hortegey oo iska dhiciyey oo iska qabtay oo u caqli celiyey oo haddii ilaahay ku rooyahay isaga mid noqday marka bulaalku halkaasuu ka yimid annagana waxaan rajaynaynaa shacbiga galmudug inuu isaga mid ka baxsan in galmudug la jaa'ifeeyo oo haddii ilaahay ku rooyahay la burburiyo inta ku hawlanna ay waxaan leeyahay aan ficen aan ku dayanne inta arrimahaas ahaa gacan siinina oo faraha kala baxa oo horumarka iyo dowladnimo wax la wada leeyahay aamina inta aan ku jirinna caajisnaanina dowladda garab istaaga cod iyo afba sidaasaa marka iyadana horumarkaas lagu gaari karaa dowladnimo iyo horumar waa bulshadoo fahamta haddii ilaahay ku leeyahay inay hoggaan u baahan tahay inay dowlad u baahan tahay haddii bulshada kasta bulshada uga faham badan tahay dowlad jacaylka waa ka horumarsan tahay waxaan rabaa inaan ku sii daro maamul jira ama dowlad jirtahay ma wada qancin karto dadka ay maamusho laakiin waxaa la isku dhaafo waxa weeye madaxdaas iyo dowladdaas la doortay qaladaadkooda waa loo sheegayaa wixii ay sixi waayaanna kursiga dambey ku waayayaan inta dambena inay meesha ay qaldan ka saxdo weeye bulshaduna aysan dhihin ay iska daayaan galmudug waxaa marmar soo noqnoqda madaxweyne hebel horta hana dhaaf kabacdi aan tashanaynaye haddii meesha la baneeyo lama tashan karo waxaan leeyahay wixii qalada hadda dowladda hanana loo sheego hanana loola shaqeeyo haddii la kuliya hanana loo fahmo in galmudug la wada leeyahay anoo warka inaan intaas u badiyo aan is leeyahay qaabka shucayb waxay u weydiiyey sidin reer galmudug waxay u weydiiyey hadduu yahay sidaasaan leeyahay hadduusan hayna soomaalida kale ay dhegaysanaysa inay sidaas nala ogaadaan hadafkayga iyo dowladnimadeeduna inay sidaas u aragno bulshada iyadana sidaas isla madahano u wacyigelina ugana codsanayna dee meeshay joogaan inay nagu taageeranayso gacnaha laaban hadalka waa badiyey intaasaan is leeyahay kusoo qob سعادة وزير أدبل وما سنتهي بجسياش هذا النقص بيرو وحن حسوسيننا إن ومرتينو يهي
wasiir falagle wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka galmudug mawduuca aan ka hadlaynana waa dagaaladii ka socday magaalada gurceel iyo xaaladihii u dambeeyey 1,100 qof baa hadda toos noo dhegaysanaysa dhammaantiin waad mahadsan tihiin ilaa 100 qof dadka badan bay gacanta u taagan tahay balse dhegaystay qoraal ku soo gudbiyey su'aashiisa yaan rabaa wasiir falagle inaan weydiiyo waa muuse saciid aw muuse wuxuu ku leeyahay wasiir saldhigga booliska gurceel oo dhowr jeer la kala qabsaday miyaa muhiim ah buu leeyahay maxaa marba qolaa qabsataa marka caqliyadda dadku ma waxay ku soo ururtay saldhig la kala qabsado bal su'aashaa sidaad u fahamtay uga jawaab waa runtahay dee horta waa qaabka hadda ay saxaafaddu ay warka u xiisayso u tabiso marka waxaan isleeyahay dee xiise kale kuma jire dhalinyarada meesha joogta ayaa ay mar walba warkaasi uu ka soo baxayo macnaha uun si uu aragta macno guuloo gaarihi ma jiro magaalada xafiisyada dowladdu ka mid yahay kuwooda ugu muhiimsan in asaga inta la qabsado uu macno gooniya sameeyaayna ma jirto laakiin dee dhalinyarada warka dadka gaarsiisaa xitaa barobagandada ku darto iyadoo aan la kala qabsan oo un qolo joogto saacada gudahood ku sheega ilaa 10 jeer in la kala qaatay si geel meel ku xaraysan marka barobaganda stageka gashay weeye stageka markii aanu shalay aanu dagaalka bilownay meelihii koowaad aan qabsano ahaa sidii buuna gacanteeda ugu jiraa laakiin ilaa xalay waxaa lagu hayay saacad walba waa laga kiciyey waa ku soo noqdeen waa laga kiciyey marka barobagandada gurceel qayb ka mid ahaa waxay gashay stageka ku soo celintiisa wax gooniya ma waa mahadsan tahay aad waa u mahadsan tahay su'aal hadday waxaa jirtay si fiican aad uga jawaabtay balse dadku ay jeclaan lahaayeen inaad faahfaahin naga siiso oo taasoo ah ma jirtaa qorshe idin dejisan oo aad isleedihiin hawshan waa lagu dhammaystiri karaa su'aasha way soo noqnoqotay waxaan jeclaan lahaa inaad si fiican uga jawaabto minaa birri dambe xilli aad isleedihiin howlgalkan wuu dhammaan karaa horta dee waxa weeyaan howlgalkaadi mid oo waxaanu jecelnahay saacadda asaan kula hadlay inuu naga dhammaado oo saacad kastoo dib noogu dhacday dalkii deegaanka uga fiicna waxaase aad u qiyaasayaa haddaan dhinacyo badan ka istaago iyo sida caawa xaalka qiyaaso waxaan isleeyahay saacadaha soo socda sida doontama noqotay waa sabab jarma ilahay idinkiisa waaya wasiir falagle aad u mahadsan tahay waxaan soo dhaweynayaa fadxiya siyaad fadxiya wax su'aalaad qabtay miyaa jirtaa fadxiya haddaad maqlayn waad mahadsan tahay gabdhaha aad noogu yar marka gabdhaha inaan mudnaan siiyaan rabaa fadxiya su'aal ma qabtaa walaal ها أي هذا سو كوبيا بقول الله القفي قاعد تاجنتي فتحية سو كوب ولا القالي ها بصيرك حرب أنا ويتيو دتك كبرك على مجالات جرعال دولات كمجالات أوبركاي مجرتا جرجار بين آدم مو إلى جارسية sidoo kaleeto madaafiica lagu garaacay magaalada sida wararka qaar sheegayaan dad shacab ay saameyn ka soo gaartay marka mas'uuliyadda si qaadanayo maleeshiyaadka gurceel ku soo guuray base qolada madaafiica ku garaacaysa waa mahadsantahay wasiir aad waa mahadsantahay su-aashaasi waxa weeyaa waa isku hal su-aal dadka wixii tabara waa la gaarsiin doonaa laakiin muhiimadda ugu weyn oo muhiimka waxa weeye dadku ma ahan dad haddii ilaahay ku rooya dan daraysnaa ama miyi joogay waa dad reer magaala oo haystay oo haddii ilaahay ku rooyahay guryo qurxoon ku jiray oo nolol fiican haystay aad bay waxay noo dhibaysaa in 2 habeen iyo 3 habeen iyo 4 habeen ay geed hoostood ku baryaan ayaga ilmahoodu oo aan garan karno qofka reer magaalkaahi waa ka adkaysi yar yahay qofka haddii ilaahay ku rooyahay ama reer miyiga ama sekala marka kaalmada wixii awal gaaray waba gaarin laakiin kaalmada ugu horeysa oo hadda aan ilaahay idinkiisa aan filayno waxa weeye inay saacadaha soo socda haatan habeen baa lagu jiraa biri wixii looga bilaabo inay guryahooda si nabad ugu soo noqdaan ganacsigooda si nabad ugu soo noqdaan
soo galbintooda iyo barigantaalkoodana qaybta ugu muhiimsan baynu qaadanaynaa amnigooda inaan sugnana u ballan qaadaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ilaahay hawshaas uu maaragtay uu noo fududeeyo oo maaragtay ay noqoto midda ah yaa ballan qaadaya su-aashaasi soomaalida oo dhan baa isweydiisa marka culummada masaajidada inta la tago culummada la weydiiyo axkaamta iyo su-aalaha ugu badan oo la weydiiya waxa weeye qofka hadduu uusan shiikow tukan maxaa ku dhacaya marka qofka hadduusan tukan waa waxa ugu fudud ee qof kastaa fahmi karo marka midii cilmiyan dadka lagu sheegaya wax ka fudud oo og yahay inuu salaad la-aantu si xun tahay ayaa culummada warka looga dilaa midaan ah haddii ilaahay ku idmaayo yaa ballan qaadaya xeerar caalamiya ama mid soomaaliya u yaala dalka soomaaliya 30 sannadood iyo ka badan ayaa gabadfal iyo dhibaata ka dhaceen oo ilaa hadda ka jiraan mas-uuliyadahooda weli cid la saaray lama hayo ciddii qofka la waraystay dhinaca uu ka soo jeedo maaha dhinaca kaleu saaraa marka waa war un iska qaangaaray oo hadda haddaan idin idhaahdo dhinaca kalaan saaraynaa war idinku cusub maahan laakiin waxaan rajaynayaa in xisaabtan imaan doono ciddii dembigaas uu galana meesha rabtana oo raacdayn doono qaabkaas in soomaalida u gudubto oo lagu xisaabtamo dembiyadana aadan usoo dhaweynayaa laakiin su-aashaasu ilaa 90kii jawaabteedu waxay ahayd waa laiga gardaran yahay cidda iga gardaran baa saaraysa marka sidaasay qaybtaasaana qaybkana wasiir aad baad u mahadsan tahay dadka gadaal kusoo biiray mawduuca haddaan la qabadsiiyo waa xaaladda gurceel iyo arrimihii u dambeeyey wasiir falagle wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug iyo marti noo ah waxaan jeclahay sida loo kala horeeyo ama gacanta loo taagtay inaan dadka mudnaan u siiyo boqolaal qof ay gacanta u taaganta balse intaan ka karno ayaan kusoo koobayna maadaama xilli dambena ay tahay wasiirkana uu soomaaliya joogo lagana yaabo dad badan oo qurba joogo oo xilliga uu u kala duwan yahay inay madashan ku jiraan waxaan soo dhaweynayaa walaalkay ciise xasan ciise ku soco walaal nactoosho waa mahadsan tahay adiga iyo wasiirkaba raggan dagaalkoodu waa markii labaad waxaa keenay in uu mar labaad soo laba kacleeyo waa afkaar qaloocan ay aaminsan yihiin haddaba wasiirka waxaan weydiinayaa ma loo diyaariyey culummo afkaartaas qaloocan kala dagaasho oo kala doodo maadaama fikir looga hortago oo haddii xabad looga hortago ay sii bulaalayaan wajaadilhum billatii hiya axsan marka wasiirka waxaan weydiinaa rag ma loo diyaariyey raggan la doodo oo waxyaabaha qaldan ay aaminsan yihiin ka ishkaal bixiyo waa mahadsan tahay waad mahadsan tahay waxaa jirta marku tidhaahda haddii dad jaahilihi diriraan dad aqoon lahaa xalliya haddii dad qabaa'ila diriraanna nabadoonnaa xalliya laakiin haddii culumma dirirto nin waliba hal aayadda siduu rabo u turjumanayaa marka cadaabta xallisa iyo xisaabtanka ilaahay marka culummo dirirtay cadaab baa sugta maahane xal lagama gaaro sababta waxa weeyaan nin walba aayad uu rabo inuu asagu habka uu rabo inuu ku bileeyo ayuu imaanayaa marka ciddaan diyaarino iyo iyaguba hal aayad bay wada waxay ka dhiganayaan in ayagu ay sax yihiin waa aragtay oo marka arrimaha diinta soomaaliya laga doodayo ragga qaarkiis waxay ugu hadlayeen in ayagu jannadii mas-uul ka yihiinoo adiga hadda ogoo waxaa caana ay janno geshay kaa dagaalgal qofka marka dhalinyarada carruuraha dhahaya janna ay u socdaan asagoo dagaalka ma galo meel dagaal lagu laga ma galo haddii markay jannad jirto halkaasaa la aadi lahaa haatana wadaado kaloo aan soo kicinno un muran iyo buuq bay keenaysaa waxaan leeyahay ilaahay maaragtay ayaa noo dhexa laakiin hadda un qoladan hadda awada joogno waxaan leeyahay yaan aqli weyn ka lumine dadku waa wada islaane haddaad wax rabtaana sheega haddii kalena dadka iyo ehelku dhib intaasa ugu filan iska daaya soo dhowaada ra-iisul wasaare roobla laga bartay dhabar gadaalkii waxaa ka eegnina soo dhowaada galmudug waxay leedahay soo dhowaada dhibkii shidada naga daayo dowladduna waa nagu filantahay kaale waa mahadsanta cabdiraxmaan hudayfi ustaad weriye
xog ogaal wax badan la socdo soo dhawaa walaal macane aada umahadsan tahay weriye cabdirasaaq catoosh madasha quruxda badan la noo diyaaraysan waa kaaga mahadcelinayaa wasiirkana aad iyo aad u mahadsan yahay in uu caawa ogolaaday inuu barnaamijkan uu ka qayb galo aniga su-aasheeda waxa ay tahay inaan wasiirka aan weydiiyo ahamiyadda ay leedahay in Gurceel xilligan uu dagaal uu ka dhaco iyadoo aan ognahay in deegaano aad u fara badan oo ka tirsan galmudug muddo dheer shabaab ay joogeen oo ay xaalado kala duwan oo macluulahay ay ka jirto awoodda iyo dhiigga iyo dhaqaalaha ku baxaayo dagaal wada hadal lagu dhammayn karo maxay tahay waxyaabaha kalifayo ama ahmiyadda ay u leedahay Gurceel oo aysan ahmiyad u lahayn deegaanada kale sida Ceelbuur iyo deegaano kale aad u fara badan ama Ceeldheer aato iyo meelo kaleba waa mahadsantiin haddii su-aasha hore loo weydiiyana waa ka cudur daaranaya ama leema weydiin hadda madasha legama weydiin laakiin subax walbaa la kulanaa Ceelbuur iyo Ceeldheer iyo waxa ka jira iyo sida wax loo qabo waaye waa u tabar beelnay habeena kaba gabaano dadka iyo dowladdeeda naga maqan hil caalami hil daleed baa u baahannahay haatana Gurceel waxa gacanta ayada ay ka baxday annagoo wisil iyo haddii ilaahay ku rooyay bacad weyne iyo inta la halmaasha kula dirirayna soo kula dirirayna jiidaan la jiro han doorashana jiro ayaa haddana tanu noo timid haddii ilaahay ku rooyay deegaanku hadda intii markaas aan karno oo aan wax ka qaban karno mas'uuliyad baa naga saaran Gurceel haddii qabsadeen maxaa loogu dirirayaa haddana Ceelbuur baa lagu diriro waras qabanaya maahan oo waxa weeye hadda qofka raba inaan Ceelbuur xoreyno inuu Gurceel inaan xoreyno oo dib u arko iyadana waxa weeye waa waxaan is qabanaynin weeye haddii ilaahay ku idmaayo annaga marna shabaab waa la diriraynaa tabardarrayna nooga haystaane xishood iyo programyo midna maahan midaana waxa weeye hadda deegaanka isagoo faraha ka sii baxo magac kale ha lagu sunto cid kasta oo dowladda galmudug dhulay xukunto si sharci darraa ku qabsata annaga waxaan arkaynaa inay tahay arrin qaldan sidaan uga hortegi karana waa uga hortegaynaa waxaa soo hartay Gurceel waxa weeyaan galmudug waxay ka kooban tahay mudug iyo galgaduud waxaa la yidhaahdaa intaada iyo Gurceel waxa weeye magac ahaan ayaa laga yaabaa in dadku aysan in badan aysan aqoon Gurceel waa magaalada ugu populationka badan ama ugu dadka badan galmudug ugu ganacsiga badan leh haddii ilaahay ku rooyahay ugu canshuur bixinta badan xilbowlaha wadnaha dhiigga ka waraabiya ayay galmudug uga jirtaa xag dhaqaale iyo xag dad iyo xag baaxad iyo xag ganacsi marka naguma sahlana deegaankaygo dhan naguma sahlana laakiin Gurceel oo gacan kala gashay waxay la mid tahay galmudug oo gacan gashay wasi waa naasanta follow up question arba meeshan aan ka weydiiyo Ceelbuur baad soo hadal qaaday waxaa tiri tabar la'aan baan Ceelbuur la weerar laanahay tabarta aad Ceelbuur u weydeen ee aad Gurceel ku weerarteen xageed ka keenteen hadda Gurceel ma ana weerarin Gurceel aydan oona ku soo weeraray ma ana weerarin idinka doontay markii idinku soo weeraray idinka qabsaday idinka aadimaha hadda waana ka qabsaday haddii ilaahay ku aanu istaagnay oo aanu ishaydhaydnay oo hadal ku jirna kaalmo dowladda federaalka ayaa noo yimid marka awal Ceelbuur iyo dagaal umin aadina talaxa uga aadaysiin bay su-aasha dala ku soo noqotay laakiin muhiimadda waxa weeye ma aana weerina annaga nala ku weerar annaguna haddana waa isdifaacina awla waa isdifaacnay meelo kalaa la haystaa tannaha lasi qabsadana arrinka iyagu maahan hadda midii aan awooddeeda leenahay ilaa wasiil ilaa bacad weynanta la qabsadaan saacada uga saaray marka ma aana oran xar dheeraa maqane ayana iska maqnaato marka hadda meesha tabartu la dhigtaynu aanu joognaa ayaduna qaybahaasi ka mid tahay waad mahadsantahay aad baad u mahadsan tahay waxaan kusoo dhaweynayaa garaad xikam oo muddo gacantii u taagnayd garaad naga raalli ahaw soo dhawaaw hadda عطوش وما صنتهاي ضدك سوماليات حلقة كجرنا ومضى سلامة يا دمانتون واللي مقلع بنفليها
سيفي عن كسر ولا wasiirkana waan u maxdalinaynaa adigana sidoo kale mahad ka gaarto inaad intaana dad Soomaaliyeed ah aad isku keento marxalad maamul wada og yahay in dad Soomaaliyeed Soomaali badan waa iska beele la og yahay in beelaha ugu badan ay wada dhisteen dad Soomaaliyeed oo walaalo ah ay wada joogaan dhibaato aan waxa weeyaan xilligan aan loo baahnayn ay ka jirto sidaas daraadeed ay bananka loo qabatay atosha ma santahay aan soo aan shabeynaan weydiyo kolay dad walaalahayga weydiiyey jawaabtoodana waanu ku qanacnay anigu su'aasheedu waxay tahay wasiir waxaanu ognahay nimanka culimada sheeganaya hadda dagaalka aad kula jirtaan in oo dagaalkoodu koow oo laba oo saddex uu dhaafay oo hadda marxaladii afraad la marayo ka soo bilow Sheekh Shariif Sheekh Axmed ilaa hadda aynu joogno 2022 madaxweyne Farmaajo waan la soconaa in hadafkoodu aan la fahmin wada hadalkooduna dhinaca u socdaba dadku waxay kala xaajoodaan aan la fahmin waxaan u baahanahay inaynu ogaano dadka meeshan ku jiro iyo aniga oo su'aashan ku weydiinayno ogaano hadda maadaama hadda dagaalkani aad kula jirtaan oo intaano khasaare ay ka dhaceen laga yaabo dad shacab waxa weeye barakac oo hadda laga yaabo hadda anagu waa basmaqlaynaa in dad aanu media haysan oo duulka waxa weeye ku barakacay laga yaabo inay nolol aad u qadaray ku jiraan laakiin hadda inta hadda aynu media ka arkay dhibaato ugu filan tahay dagaalkan intaano khasaare geysay baad gasheen saraakiil ciidan baa baxay waxa weeyaan dad shacab ah barakacay haddii aad gacanta ku dhigtaan dadka falkan ka dambeeyay sidii hore oo kale wada hadal baa inta loo qabtaa la dhihi doonaa kursi baa la siinaya intaas oo xilman qaata haddana waxa weeye xogaa Turkiga meelaha soo aada inta soo aada meetada lagu soo laabta haddana fikrad kale noo keen dagaal kale miya imaan doona mase waxa weeye wixii hore idin soo maray oo aad ku soo aragteen waxbaad ka barateen oo qorshe cusub oo aad kaga badbaadin kartaan dowladnimada iyo miya idin degsan وصوفكم ساعات وزير وقت ما هينو waxaan jecelnahay 15 daqiiqo ee saacada ka dhiman intii ka bixsamayso inaan ku qatinno wasiir adoo soo koobaya adoo maasan su'aashaasi waa iska koobanta waxay ku kooban tahay waxa aan sameynayno hadda inta ka sheego wixii aan sameynayna qaawanaanaya marka garaadna uu sheego wuxuu saas hore u sameyseen marka garaadu noogu duceeyay ilaahay inuu si yaroo sahlan oo colaada nooga xiro waxaan sameynayna waa iska waxa weeye waa hawl daboolan asturan markii waqtigeeda la gaaraan anaga arki doontaa waad maasantahay ciise soo dhawa walal macaan ciise xasan سؤال وفهم لكن ولي سيدا عن ربما موسوق جوابين وزير كوانا كما تسين كلي وما سنتهي وحن سود وين يا فاطمة كاشان سود ورا القارئ وما سنتهي عطوش وزير كنا سلام يا سؤال بدنا ربينا نويديو نوال ويدي لكن حربينا وزير كويديو حاودي ذيك المدوك إنا يالاتو ضيال قورتي oo marxaladuhu markay sidaan oo kale u cuslaadaan samata bixin kara hadii dawladdu ama siyaasadda dawladdu ay samata bixin kari weydo marxaladaha taagan su'aasha kale aan rabaa weydiiyo waxa weeye wasiirku wuxuu sheegay in maxaa la yiraahdaa amaba aan iraahdo dagaalkan hadda socda sida ay ciidamada galmudug ama dawladda dhexe uga yimaadaan ama iyagu ugu dagaalgalaan ay ugu awood leeyihiin ama ugu quwadaysan yihiin maxaa diiday inay ugu awood noqdaan dagaaladii ka dhacay oo al-shabaab lagula dagaalamay ma la oran karaa dagaalkii al-shabaab kamay ahayn daacad markii loo eego dagaalka hadda socda sidoo kale wasiirku wuxuu cadeeyay inay hadda gacanta ku hayaan saldhigan oo aad moodo dawladdu inay awood ugu badan ay saarayso guriceel maxay kaga duwan tahay gobolada kale ee galmudug oo dhibaatooyinka weli la daalaa dhacaya al-shabaab ku geysteen oo weli dawladda galmudug si cad oo cabayaan ah aysan dib uga geysanin wixii laga rabay markii xitaa loo eego wasiirkii amniga oo iscasilay su'aalahaas aan rabaa inaan weydiiyo aad baa mahadsantihiin wasiir ku soco aad bay u mahadsan tahay walaashay odayaasha guurtida waa run oo waa jiraan laakiin waxtarku waa hooseeya
aad baana meeshaas dabayl uga jirtaa waxa weeyaan arrinkaasu waa arrin mar walba lagu soo noqnoqota laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego galmudug maamulada kale waxay uga duwan tahay galmudug waxay ka kooban tahay soomaaliya oo dhan haba lagu kala badnaado haddii la rabo soomaaliya oo dhanna isma raacsana ama guurta ha lahaadaan ama yees ha lahaanin ilaa hadda way kala daadsan tahay inta soomaaliya qarannimadeedu kala daadsan tahana galmudug waxay ahaanaysaa mid mar walba laga fisho in wax ka jiraan annagu waxa weeyaan 4 beelood iyo barka soomaalidu ay wax ku qaybsato ama 5 beelood aan idhaahdee waxaan is leeyahay beel aan wax ku lahayn kuma jirto weliba kuwa isku tiriya inay beelaha waaweyn ee soomaalida maamul ay ka jirto ma jirto haddii ilaahay ku rooya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay ka soo jeedaan beelaha dowladda federaalka ay ka soo jeedo madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraheedu marka galmudug mar walba yaan lagu dhereerinin maamul goboleedyo beela ah markii maamul goboleedka beel uu yahay beesha guurtideeda maamul goboleedkaas mulki u leh xeerkii dhaqankeena ku maamulaan xeer beegtay u leeyihin laakiin galmudug in uu si qarannimo ay u midowdo oo wax u qaybsata maahane odayaal guurtii oo beelaho madaxda qabsanaya lama dhisi karo soomaaliya oo dhan haddaan loo dhisana galmudug gola loo dhisi karo marka saas waa in loo ogaado waxaa soo hartay gurceel waa ka jawaabay baan umalay marka hore gurceel horta dadka hadda la isku dhexayo meesha joogta waa dadkii gurceel u dhashay wey dad meel kale kasoo duulay ma ahan dadka haatan dhibka dhacayana halkaas ayuu ka jiraa oo hadda dad meel kale ka yimid ma ahan midda ah haddii ilaahay ku idmaayo dowladda federaalka hagar bay ka muujisay haddii ilaahay ku idmaayo la dagaalanka shabaab la dagaalanka halkaana xoog iyo awood bay muujisay runtii haddaan wasiirka federaalka maayo waxaan ahay wasiirka galmudug ama dowladda galmudugna ama shabaab ha noqoto ama dhinaca kala noqotee dowladda federaalka anagu iskuma dhariirino inaysan dowlad ahayn inay xun tahay inaysan la fiirine wixii waana barbar istaagnaa waa taageernaa wixii aan xaq ugu lahayn waa weydiisanaa wax badan inaan wixii aan ka helno ayaan iska imaansanaa wixii hadda ay naga hagratana cidda ujeedaay oo soomaaliya oo dalka wax ku leh hadda waa ujeedaa anagu marka waxa weye qofku hadduu asag wax codsanayo ama wax baryayo wixii la siiyo inuu ku qanco weeye waxa kale inuu eedeeyo maahan annagu haddii dowladda sida aan rabna ayna yeelayso maraakiib iyo diyaarado iyo hubka hadda adduunkuna siiyey asaga dhan galmudug hala keenaan oran lahayn si ceelbuur iyo xaradheere iyo ceel dheere iyo garcad aan u qabanno marka codsiga iyaga hadda intay uga jawaabaan aan leenaha waa ku mahadsantihin intay nooga jawaabi waayaan hadday noo awoodi weday haddayna hagratay hay-ada qaranka mas-uulka ah oo dalka iskula raba waad mahadsan tahay waa soo qatimaynaa 3 qof ay gacanta u taagantahay kor saaranaan u yeerayaa idinkuu soo koobayaa daadir macallin abshir meeshaad joogto iyo su-aashaada soo koob walaal macaane السلام عليكم. عليكم السلام. رفاق السلام. سلام الله ولا مجدي وعبد القادر المعرفي. ايوه. من لندن. سؤال شو رئيس ويدينا وزيرك وهو يقول تكست بها توسط جرينا ورمتها تقدر تعمل مقالة نعم وسط جرينا. ايوه. su-aasha kale waxa waaye wuxuu kaloo yidhi waana lagu soo duulay annaga wax kuma duulin marka haddii shalay lagu soo duulay micnaha halka u jira isaga micnaha ila waddanka isagaa maamulaya sheeganaya labadaas su-aal qaba garaa noqdo hay waa maasanta su-aasha dambe waa muhiim axmed falagle arrimaha aad isu weydiiyey waxaa ka mid ah haddayna hadalkaas ku bilowday wadaadada markay imanayeen guraceel iyo huurshe iyo dhulkaas siyaaray u yimaadeen niman siyaare u yimid inay boqolaal askar ah maalmo gudahooda ku soo abaabulaan soo lama dhihi karo idinkaa beelahnaayo isdhigtay
waxa weeyaan horta de wasan kuu sheegayoo annagu marna maadaama dowladda ay sheerkahay maadaama aanu heshiisahayn maadaama ay dadka yihiin maadaama shaati culimo ay gashan yihiin marna annagu xaqayaano iyo cadownimo ilkubaanan eegin meelo kalena howlo kale waa ku jirnay soo dhexgelidda dadka ay soo dhexgaleenna oo ay arrintaas sameeyeenna haddii laakiin uu yahay siyaalahaasi ku dhacday oo ay maaragtay oo khiyaanada ku jirtaa saasay wax u dhaceen marka annagu dal ama deegaan ama wax dhacay oo maamul jira in inta laga hoos dhasho ay wax ku dhacaan inqilaabyaaba la sameeyaayo waad og tahay oo dalalka africa dowladda dhexdeeda madaxtooyada inqilaabi lala wareegaa marka in niman siyaasiyiinii inta isku kaayo gaabiyaan ay meel laga qabsadaan annagoo u malayna inay ay awliye siyaarayaan ma aha wax oo haatan la yaab leh ama dayacaad looma qaadan karo waxaa loo qaadan karaa khamiiska fanaanadaha ka hooseya annagu ma aanu u jeedin waxaa noo muuqanaysay karaamo iyo qabuuro la siyaaranaya iyo awliyo digrinaysa wixii naga soo hoos dhashana haata waa waxaas adigu amarqaatee ka jira u jeertiinoo haddii ducadad raadinaya dagaal ma galaan laakiin ma ahan dayacaad aan gallay waxay ahayd taxadarka aan ka qabno ama aan ka samaynay iyo habka u qorshaysnaa ayaa kala yara doonaa su-aashii ka horreysay su-aal maahayn baa u malaynaya waxaan ka maqlahay inka socodkiisu gaabnaa waa soo afjaraynaa baa tiri dadka waxaan is leeyahay dagaalka iyo meesha waxa ka jirana sidaan u soo afjarayno inaan soo afjaro arrintaas si dadku uga badbaado waa waajibna saaran inuu farsamo nabadeed noqdo ayaana ku rajo weynahay inuu habka kala noqdana ayadana waa hadday qasab noqoto mar walba in inta lasoo afjaro dadka bannaanka daadsan iyo deegaanku ay nabadooda kusoo noqdaan waxaan is leeyahay in laku taageera maaha dhaliil male inooguna soo duceeyo inta meesha ku jirta in si fudud arrintaasi nooga soo afjaranto dadkuna si fudud noogu soo noqdaan guryahoodii annaguna waa sidaan jecel lahay taladana aan ku hayno waa mahadsan tahay labada qof ee u dambaysa cusmaan mmj soko kadib cabdikaafi aan aadaynaa cabdisaaq tahay sidoo kale wasiirku waa salaamaya su-aalaha wasiirku waa lagu badiyey waxaan anigu rabaa mid yaro kooban aan weydiiyey wasiir maxaa idin diiday marna inaad galmudug maadaama mas-uuliyaddii tihiin dowladdii tihiin inaad galmudug ku shaqaysaan idinkoo galmudug jooga oo xaruntiinu ay tahay dhuusamareed waxaan ognahay madaxweynuhu inta uu maamulka hayay inta uu galmudug joogay inay aad u yar tahay marka maxaa diidaya inaad dalka ku shaqaysaan oo dowladnimada dadka fahamsiisaan muxuu ahaa dur markaad aragteenba oo ciidan awaad dumaysaane maxaa idin diidaya inaad dowladnimada duntaan oo dowladnimo ku shaqaysaan oo culimadan laftigeeda aad fahamsiisaan waxa nidaam dowladeed u yahay waa ka baxay waxa weeyaan horta dee dowladdu madaxweynaha keliya maahan madaxweynaha ayaa laga yaabaa inaad aragteen isagoo xamar dhowr jeer tegey oo howlaha u tegana waxayan howlo aad u baaxad lahay waxtar noqday soomaaliya mar bay kala tegtay doorashooyinku mar bay burbur tegeen dowladda dhexe mar bay qarka u fusheen burburto waxaasoo dhan in inta laisku soo dhoweeyo meel wax laislaga dhigo lafdhabar buu ahaa madaxweynaha galmudug inuu ku ammaanan yahay maahane in lagu dhaliilo ma qabo dowladduna